ujeedada workshopka waxa weeyaan child protection workshop waa xuquuqda carruurta ayuu ku saabsan yahay marka xeer baa la doonayaa dhawaan in la sameeyo insha Allah baarlamaanka Soomaaliland arrinteena dhaqanka mana doonayno wax diinteena iyo dhaqankeena ku lid ah ama ka soo jeeda inay arrintaas ka soo baxaan that's why baan bulshada inta la eego dhan ugu yeernay gobolada waddanka oo dhan waan ka wadnaa xariiqda region Soomaaliland waan ka wadnaa arrintan marka bulshadana waa in wixii danaheeda ayagu ka tashada marka anagu wax badan idin sheegmayno waxaan cilmi baarista ka ahayn waxaan leenahay wax wada mahadsantihiin sida quruxda badan leed nooga soo qayb gashay haday cuqaadtay haday maxkamadeed tahay haday jeelki tahay haday booliska tahay wasaaradaha dibadejinta waxbarashada waqaaftii diinta maanta halka looma kala hadin hooyooyinka saacada nagala joogta oo taqaaniin maanta waxaan malaynayaa wali kan oo kala meynaan arkin marka insha Allah hadii la yiraahdo kala faa'iideysanada oo aan isku xidhnaanayno nadweerka nagaadna aad bay inoola shaqaysaa haday tahay qaybta siyaasadda qaybta horumarinta haweenka wax recommendation siinay oo kala bixin siinay waalidka oday dhaqameedka bulshada saddexdaas oo isku xidhan hadii macnaha kala bixinta aanu bixinay la wajahayo ama macnaha isku xidhnaanayaan ma noqonayso in baarlamaan la tago maxkamada la tago dawladna wax loo baas gareeyo waxaan ku kala bixinaynaa in gabdhaha la weydiiyo inay raali ka yihiin ninka la siinayo نفي بقى كويم دين وناسب بقى كويم دين والله شعرتك أبرالي ما كتاه وين تاكليه قف كاسن كوها يا رالي ما كتاه ها يوم ما يا واحد قصي دالة ما بيشوفه ها ماما يا بيكون جواب يساعد إذا واحد سيقط قضاء ما يشهم يلا waxaan ka socdaa qaybta caafimaadka waxaan nahay gudkan report waxaan ku jirnaa imika maxaa la radaa discussionski ama maxaa la falaqayntii su'aalihi la noo diray ee ahaa cawaaqibta lagala kulmo guurka degdega ah ama ka qasabka ah degdega waxaan uga jeedaa ka yaraanta ee wixii isticmaalka ka yar marka groupkaygu wuxuu ka kooban yahay qaybta caafimaadka qaybta maxkamadaha qaybta booliska qaybtii oqaashi qaybtii maxaa la shuyuukhdi magaalada iskuuladii bulshada qaybtii waxbarashada aan ka koobanahay 9 qof oo waxaan ku jiraa caadi u dacwaale oo diin ka socda waxbarashada cilmada iyo anaga maxkamadiya inaan caafimaadkiya marka guddiga kooban labada nooc ciidanka ka socda sheeka iyo booliska marka sakaaka qof baan soo sameeyay ilmo marka horeba aanad hay laba qof oo meesha ugu yimaada noqdo ilmaha saaxiibtii oo taqaaneen oo goosheekistaan idan haday tahay ila taada noqotaa soo asfahansantiin oo mustawaheeda aqligeega aad kor u qaaday marka hore la sheekaysato oo saaxiibtiin inaan haduu yahayna oo noqdo qaad mar walba la sheekaysato wixii uu kula yimaadana aad mar walba ku aad inagu ka wada mushaawirtiin oo noqdo haddii ay dhacdo inuu isagu wixii uu jecel yahay ilaa ilaa sabay quraan wixii uu jecel yahay hadduu kula yimaado gabadhii hadduu uu qaangaar yahay oo marka aad tiraahdo ninkan wuxuu noqonayaa nin reer wada ku garab joogsato u dhisto wixii kartidaadana marka koobaad ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan maxad u celinayaa ururka nagaad iyo ururka kaalmo iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha seminaarka halkan maalina ee laga hadlayay xuquuqda ubadka ama gaar ahaan guurka degdega iyo guurka qasabka run ahaantii waxaanu nahay dad islaama haddaynu ku dhaqanno kitaabka quraanka kariimka wax naga maqan ma jiro waxaan waalidiinta ku dardaari lahaa marka koobaad inay ku dhaqmaan kitaabka quraanka kariimka waayo dastuur baa la sheegaa dastuurka ilaahay ka yimiday mid ka qaalisan ma jiro ubadkeena la saaxiibno ubadkeena la sheekaysano ubadkeena aan tixgelin siino inta haddaynu sameeyno wax walba hagaagaya